وات وما سنت بنشلك waxaan u imanaynaa deegaanka ka timid oo ku dhalatay oo aad joogtay waxa jirtay waadaweyto mar ay soo baxday baraha bulshada aad isku wadaagay in uu jiray dagaal u dhaxay xukuumadda deegaanka iyo bahda suugaanleyda arintaas maxaa ka jiray ni horta arintaasi arin jirtay ahayd dadkuna kulay saxan buu ku wada fadhiyayo maanta ninka jijiga jooga idinku xagan joogay xogta dhabta ayo waxa soo way xaaladda laga yaabaa si isku mid inaan u arkayno markaas aragtay waa lagu kala duwanaan karaa laakiin waxaan ka hadlayaa xagga xogta iyo aad iyo dagaalkaas u dhaxeeyay qayb kamid ah halaboorka iyo xukuumadda deegaanka iyo marka xukuumadda ama systemka uu jiray walo aan filayo inuusan wax saameyn badan oo raagta yeeshay inuusan maanta noqonin aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii marka ka aragtida duwanaa nidaamka maamulka ee maanta meesha jira markaas oo waliba ma ahayn markaas oo qura ma ahayn in badan yaan anigu maartay suugaanteedii aan ku cabiraa hadba dareemadan ka qabiyo sidaan wax u arko sida darteed kulli waxa la oran karayaa dagaalka qayb baan ka ahaa waata dagaalka qaybtaadii marka waan imanayna oo waxaan filayaa inaad xilligaas gabayo aad tirisay oo Facebook oo kale ku soo qortay gabaygaas maxaad nagala wadaagi kartaa waxa uu nuxurkiisu ahaa iyo erayada markaas la dhigi karo xukuumadda waa danqay gabayga wuxuu ku soo gabagaboobay mar haddaan ruux qura bulshada raali gelinayn insha Allah waa lagu ruqsayn roobkan maanta waata laba meris baa ku soo koobaya taadi laga soo tago cidda marka aanu la hadlayeen ma qarnayno maartay way iska cadayd marka ma shakhsi gooni la hadlayay mise madax meel ka sareyso la taabtaa ma jirto marka madaxweyne Mustafa ujeeday madaxweyne Mustafa ujeeday waata madaxweyne Mustafa waa madaxweynaha gooyaan mas'uulka hadaad khilaafsan tahay hadaad maamulkiisa diidan tahay adiga isaga ku matala oo kursiga ku matalo waa mas'uulka ay gooyaan waa mas'uul lama kala xigaana waliba sida darteed sida waxa wanaagsan ee uu sameeyo ay mudnaan u leedahay in lagu garab istaago ayaan aaminsanahay in qofka halabuurkii xaq uu leeyahay wixii is leeyahay waxana khaldan ama sidan dan ma inuu sugan sugan ku cabiro marka nacayb shakhsiyadiisa gaar ahaan aan u qabo ma jirto ma laysan jirin laakiin nidaamka iyo marka xaaladii jirtay iyo culays deegaanka dhexdiisa iyo dhalinyarada dhexdeeda ka jiray yaa maartay kaliftay inaan erayadaas aan maartay soo gudbiyo ma jirtaa wadda kaga yimaada kadib markaad gabagaas samaysay filcil horta way jirtay filcilintaasina waxyaabo badan ay sababtay baa jiray maxaa ka mid ah marka anigu markaan suugaan soo gudbinayay shaqaalan ahaa shaqaale dawladeed baan ahaa marka mushaar baad qaadanaysaa shaqaale dawladeed oo mushaari aan hadda haddana saasay tahay weligay inta aan silsiladda dawladda ku jiray aragtida marka hadba aan qabo igamayn hor istaagaynin shaqaalanimada waxaan aaminsanahay qofku mar uu nafsadiisa oo u baqana way jirtaa ay ku kaliftay inuu ama wax sameeyo ama wax ka gaabsado mar uu dan gaar ah iyo fursad u baqana way jirtaa labadaasna way kala culus yihiin sida darteed anigu fursadda shaqaalanimo uma baqanayn marna hadday meesha ka baxdo haddaan waayo waxaan aaminsanahay inay iga qiimo badan tahay aragtida xorriyadeed oo aan dhiiban karayo sida deegaanka waa madaxweynuhu markuu yimid uu maartay u sheegay uu yiri xorriyadul qowl baan soo kornay deegaanka ka jira sida darteed hatta hadaan waayo
shaqo ma aanan maartay jeclaysanaynin inaan aragtida aan u beeldareeyo iyo xorriyadda maskaxeed iyo waxaan aaminsanahay bulshada inaan dareen ahaan inaan maartay sugaan ugu cabir karay sida ayadoo tahay falcelin baa timid falcelintii waxay noqotay in la yeero la yiraahdo waxaad meesha soo gelisay ka saar sababtuna waxa weeyaan shaqaale dawladeed baa tahay maadaama wada shaqaale dawladeed tahay dee baktiga ma cuno fuudkiisana waan cabnaa isma qabanayso dawladdiina waan dhaliil mushaarkina waan qaadan dawladdiina waan dhaliil mushaarkina waan qaadan isma qabanayso saasay tahay anigu shaqaal raydana xubin xisbi ma ahayn man ahayn xubin magacaabis oo la soo magacaaba meesha la keensaday ma ahayn laakiin shaqaale raydahoo inuu dhididkiisaas iyo maskaxdiisa ku maartay bulshada ugu shaqeeyo u taagan baan ahaa sidaa darteed inaan dhaliilo markaan afka labar ku hadlayo oon dhaliil ma garanaysaa togan aan weliba soo jeediyo ma ahayn haddii xeer ahaan haddii la fiiriyo iyo haddii si guud loo fiiriyaba mid iga hor istaagayso ay qabanaysa maysan ahayn sidaa darteed isku celcelis markii wixii ay noqdeen maartay ficilta noocaas ay timid waxaan maartay ku adkaystay inaan anigu bannaanka ka noqdo silsiladda shaqaalaha dawladda inaan bannaanka ka noqdo oo aysan noqonin wax yacni laygumana sheeganaya ama laygu soo gabanayo dabcan cid si dhaaragta ay tiri shaqada bannaanka ka mar ma jirto laakiin baktiga ma cuno fuudkiisana waan cabnaa ama dawladda dhaliisheeda yaad ka tanaasulaysaan ama waxaad u daynaysaan marka ay noqoto si fiican dee doorashadaada iska leh dabcan ana tanaan doortay marka sidaasaana markaa iskaga soo gabagabeeyay barnaamijkaas muddo intee leeg baad waxa weeye aad ahayd shaqaale dawladeed oo aad mushaar qaadanaysay 3 sano 3 sano 3 sano 3 sano waxa aadan ku qanacsanayn mushaarkii dawladdan u qaadanaysa shaqaalahaydana uga mid ahayd 3 sano kadibna keen inaad ku qanci weydo oo aad intaad Facebook qoraal soo qorto kaarkii shaqaalinimo iska celiso shaqadiina waan ka tagay oo wixii hadda ka dambeeya ka mid mihii shaqaale dawladeed aad u tiri maxay ahaayeen taasi waa fududahay saan kuu sheegay muddadaas deegaanku hal maamul buu lahaa intaa hore 3 sano hadda su-aasha iga weydiisay hal maamul buu lahaa laakiin marxaladdu maamulka laftiisa uu ku sugnaa way kala duwanaan kartaa أنا واحد يدنا شخصي ما هين شخصياتنا ما هين لكن نظام بوها النظام مركان كلها هاي ديجان كسان كل شيء حلي هاي هو جامي يليه ومدحوينا وحاجة تمدو وصاها مدحويني كسماء waxaan dareemayay waxyaabo badan oo diidanahay in uu mudan yahay in fursad loo siiyo maadaama uusan awood rasmi oo buuxda xilliga lahayn waxaan qabay rajo ah waqtiga kumeelka buuxda yeesho kumeelkaanimada ka baxo waxyaabo badan soo qudhiis inuu dib sax ku sameyn doono sidaa darteed taas waxay sababaysaa inaan cagta u dhigo xoogaa kaadsiima inaan lahaado waa talabaadee marxalado badan oo marar badan yimaada waan ka hadli jiray kama ana gaabsan jirin waxyaabo badan oo iska caadi waa saddexaadee cid intay ii yeedho i kala dooransiisa labada marxaladood haddaan kuu sheegayay lama ana kulmin waqtiga ka hor saa darteed taasi waa sababta xilligii hore ogolaatay inaan ka sii mid ahaado
kadibna sababtay inaan banaanka ka ahaado oo aan ugu taa doorto aad iyo aad markaasay waad hadda maadaama aad Nairobi joogto deegaankiina aad ka timid ma lagu arki karaa maadaama aad marka hore nin shaqaale dawladeed ahayd waxa laga yaabaa inaad marka qaarkood cabsi weyn ka qabin in dawladda ay ku xidhan maadaama shaqaale dawladeed aad tahay hadda maadaama aad ka fikir duwanaatay adiga dawladdii madaxaad la gasheen iska cashishay shaqaalnimadii Nairobi aad timaado ma lagu arki karaa inaad istiri army lagu beegsadaa oo lagu xiraa oo fikirka lagu xiraa saasna deegaanka wada tagtay imaashahayga mise wixii dambeeya dambe imaashahaynan xaggan imaado mid baan ka leeyahay imaashahaygu ma ahayn wax quseeya ama totally la xiriira arrimo aniga iyo xaggaas naga taagan intii aysan soo bixin is-eriyashadii dhalinyarada halabuurka ah iyo nidaamku ay iskaga soo horjeedeen ka hor isla maamulka xafiiskayga waxaan ka codsaday inaan u baahanahay fasax yaroo muddo koobana hawla ku soo dhamaysanayo waa lagu ogolyahay leen caadi oo tii kataa waxaad doonto aad soo qabsanaysaa hawlahaaga iyadoo halkii ay taagan tahay waqtigii aan rabay inaan baxo laakiin aan la gaarin iyo marka tan dhacday marka iyaguna waa ka marxaati oo way og yihiin inta kale ogeydna way og tahay sida banaan bana ma aaminsani aniga iyo xukuumadda dagaal naga dhaxeeyo inuu jiro si samiyo wax waa la isku diidi karaa wartay haddaan ila aragti ahayn niyow saaxadan aynu ku wada fadhino aynu wax ku wada leenahay haddayna wada difaacanayn aynu inaan kala leersano haddii lagu yiraahdana colaadin ma ah dhinac marka laga fiiriyo ma aaminsan inay tahay colaad dhex taala deegaanku waa deegaankaygi bari waan ku laabanaya anoo waliba walwal iyo cabsi ka qabin sidaa darteed lama odhan karayo imaanshahayga xaggani carar aan soo cararay oo nidaam iyo jeel iyo cabsi aan la soo baxsaday yaa taagan mid kalena waan kugu darayaa dadku waxay isugu jiraan marar badan iyagoo kala aragti oo isku meel aan socon yaa laga yaabaa baroorta inay isku darsadaan sa waxaan ku leeyahay ani dad badan oo waxaa jira inaan mucaarad ahay marar badan dee qaab noocaas oo kale ah afkaarahayga inuu dhiga anu siyaasi ma yihiin dhalinyaro halabuur markaan ahayna mucaaradka iyo nidaamkooda ay u socdaan waan ka duwanaa kaa maanta kursiga jooga hadduu wax wanaajiyo dee wixii ku garabsaaga ku taageeraya hadduu wax meeyana inaan sheego yaan jeclaa waxaa jira marka qof laga yaabo inaad marka qaarkood inuu baroorta kugu soo darsado isna kursi doonaya ama maamul iyo xukun doonaya marka kuwa laftooda farqi baa noo dhexeeya tan kale ma aaminsani haddaan deegaanka joogo oo aan dee dhalinyar yar oo bahalkii aan soo jeediyo dee marar badan hore waan ku nabadgeli jiray anoo wax dhaliilaya cid xabsi geysay cid dhibaataysana maartay maan arkin haddana ma aaminsani haddaan dee beri aan tago inay dhibaato iga soo gaarayso ama aan noqonayo qofta bila aan halka ka ah dee maba ihi oo maba ana gelin waa suura marka taasina taa weeyaan waata su'aashii horaan ku laabanayaa ay ahayd 3 sano oo shaqaale dawladeed ahayd mushaarna qaadanaysay kadib inaad iska casishay shaqaalnimadii kana tagtay maarta shaqadii waliba dee adigoo markaasi wali aan ka tagin aad dawladda dhalishay kadibna lagu arkay nin qaab yar mucaaradnimaha u dhaqmaya mushaarkii dawladana qaadanaya Ethiopia iyo deegaanka Soomaaliyeed waan ognahay in qof shaqaale dawladeed ama xil dawlad ka haya in inta badan aysan dhici karin inuu dawladda dhaliilo maadaama dawladda ay qoodinayso isaga arintaas lafsiga markii la fiiriyo lagu arki karaa inay jireen fursado aad gaadaysay oo markii ay ku hirgaleen aad dawladda ku booday leeyo malaha dadka saxaaqada rabta wixii mala ah bahalkiis laakiin mar walba waxa mudnaanta leh rasmiga xaqiiqada weeyaan xaqiiqadan waxay tahay qofna deegaankiisa iyo dalkiisa joogistiisa
iyo neecawda ciidiisa kama maarmo hurdada aan jijiyo ku seexdo meel kale oo ku seexanayo ama aan lahaanshiyaha aan ku dareemay ma jirto hadday noqoto fursad dee nin dhalinyarana xaq baan u lahaa inaan magaranaysaa qofku waa xuquuq u leeyahay inuu dadkiisa u adeego isaguna bulshadiisii iyo dowladdiisii uu shaqeeyo nacfi ka dhexdaansado kama maarmin oo malihii waan ka maarmay laakiin marka ay noqoto in ay xorriyadaada hadal iyo fikirkaaga iyo aragtidaada inay saamayso inuu shaarkaagu nadiif ku ahaado yaa igala qurux badnaatay inaan shilimada ilaashado marka taasi waa sababta kaliya ee markas aan cuskanayo kala duwanaanshaha waqtigaas iyo waan soo koobaynaa abwaan su-aasha ugu dambaysa inaan ku weydiiyo waxay tahay ma jira waxaa waayadan dambe soo batay in qofku uu wax sameeyo kadibna waxaasi laga yaabo inay dad kale u adeegsadaan dhinac kale oo ama gabayada ama suugaanta kale ma jirtaa in gabayo aad samaysay dad kale ay dhinac kale u adeegsadeen oo ay meesha adigu aad ula jeedan mooyeen meel kaleete oo ayagu markaa ay rabeen ay maarata u jeediyeen way badan tahay waxaana ka mid ah tan haddaan kuu sheegayaan ku lahaa dadku way isku baroor darsadaan iyaguna isku meel soconin marar badanna waxyaabo badan oo aisdaho soo jeedi waxaa laga yaabaa inaan arko dad afkaartaada ku riganaya ama doonaya inay qaabka adigu u waday qaab ka duwan ay u isticmaalaan sidaa darteed qof aydaan isku meel u soconin intii laysku keentoomi lahayd isku lug noqon lahaydeen taa lafteedu adoo ka dhowrsada armay ka yar qurux badan tahay aan isweydiiyo way imanayaan waxaan anigu si guud u idhi yaa laga yaabaa in hal shaksi ah ujeeddada dhexda laga saaro cid aanan u wadin afka loo geliyo marar badan bay taasi dhacdaa dee anigoo keliya ana ma ahee dee marka wax la wada riixayo waxaa laga yaabaa inay afkaaruhu noqdaan kuwa iyagoo isdiidan oo anihii aan isku meel soconin oon isku wax rabin in haddana dadka adeegsanayay ninba meeshu isagu rabo afkoo saaro taasna way jirtaa wagaag aad u mahadsan yahay abwaan axmed xasan xuseen shilke oo waraysi igu siiyey magaalada nairobi xarunta waddanka kenya waan uga mahad celinayaa waqtigiisa qiimaha leh ee uu qaybta naga siiyey abwaane aad baad mahadsan tahay tan iyo kulan dambe nabadgelya saaxiibayaal